ab iyo dhidig la isku daro ugu dumar baa tahe hooyo dulmar baa tahe docdii badan baa tahe awoodihiin baa tahe duxdii noloshaa tahe dhammaan abwaaniinta iyo fanaaniinta ku nool Soomaaliland ayaa raali gelinaya Safiya Tusmo oo fanaanka Cabdi Ciise oo kula kacay falkii argagaxa lahaay waxayna leeyihiin ka raali noqo falkaasi oo kugula kacay fanaan sheegadkaas Cabdi Ciise waxayna halkan fariintaas uga gudbinayaan fanaanada Safiya Tusmo isla markaana ay ka raali gelinayaan abwaaniin iyo fanaaniin ayaanu halkan kugu soo qaadan doonaa raali gelinaya Safiya Tusmo fadlan intaanan u gudagalay subscribe channel si share garay oo la wadaag asxaabtaada sidoo kalena fiidiyogan like garay markaas wax kala ma haynixine waxaan ku garanayaa nin walba korkiisaan ka garanayaa abwaaniin iyo fanaaniin ayaa raali gelinaya Safiya Tusmo oo hore fal argagax la ugu sameeyay Cabdi Ciise isla markaana ilaa hadda uu ku booteynayo in uu ka soo fasixi doono fiidiyo hor alla ah waxayna sheegeen in ay ka celi doonaan isla markaana ka joojin doonaan Cabdi Ciisena la xakameey doono lana dhihi doono ha ceebeen gabadhaas islaameed ee halkaas ceebteeda ku adkay isla markaana waxa ay raali gelinayaan Safiya Tusmo oo isla markaasi Hargeysa ka aadana qaaradda America waxayna sheegayaan in fal argagax la lagula kacay isla markaana fanaan sheegadkaas Cabdi Ciise ee ka soo jeeda Hargeysa oo kula kacay fal xumo badan isla markaana waa ay raali gelinayaan oo waxay leeyihiin Safiya Tusmo raali ahaaw fanaanka marna abwaanka Laab Saalax ayaa raali gelinaya isla markaana ku raali gelinaya maanso gabay ah isagoo oo sheegaya in markaasi khalad laga galay haddaba waxaan wada ogeynay in uu khalad weyn ka galay fanaanada Safiya Tusmo Cabdi Ciise isagoo oo markaasi bistoolad madax uga haayo oo ka soo faafiyay muuqaalo markii horena uu sawiro qalad ka soo faafiyay labadooda oo wax qalada wada sameeynaya oo ka soo faafiyay isla markaana oo ku booteynayo waxaan ka soo faafinayaa fiidiyo hor alla ah oo markaasi wada sameeynayna galmo subhanallah Cabdi Ciise ayaa fariinta ku gudbiyay social media wuxuuna sheegay in uu laba bari kadib ka soo faafi doono fanaanada Safiya Tusmo iyaga oo wada galmo wada sameeynaya isla markaana uu social media ku soo faafi doono balse arrinkaas waa laga celiyo oo waxay fanaaniinta Soomaaliland sheegeen in uu soo faafi karin taasna been oo ku sheegay Cabdi Ciise isla markaana ay ayagu ka celinayaan aysan ku soo faafi karin social media isla markaana ay ka dileed gareynayaan fiidiyoyada iyo dhammaan Gmailada ay ugu jiraan Safiya Tusmo muuqaaladeedu haddaba abwaan Laab Saalax aan wax yar wada daawano ma sida uu markaasi tirinayo waxa la yiraahdaa gabadhaada haweydiin baahideeda haddaad weydiisana dalabkeeda oo adkayso marka dhinaca laga eego dhinac kale gabadhu haddii ay suuqa tagto oo alaab ay soo iibsato qiimaha alaabtaasi ay wax ku kordhiso da'da saaxiibadeedna sidoo kale ay wax ku kordhiso nin odaya ayaa lagu yiri oo waayeela isagoo geed joogay afran u tagayna markaas ku yiriniyo adiga gabadhaada waan garanayaa adna waan garanayaa ragii baa shikiyos wada eegay markaas uu wax kala ma haynixine waxaan ku garanayaa nin walba korkiisaan ka garanayaa nin kasta oo qurux badan nin kasta oo bulshada qaybaheeda kala duwan kula sharaf waxa ka dambaysa gabadh markay sidaas tahay anigu xasan ahaan wax gabadha lama dhalan maalimaana sidii waniyo haddaad gabadh la hadli lahayd walaasha oo dardaari lahayd oo u digi lahayd oo tusaaleed maxaad u lahayd kadibna waxa sameeyay maansan la yiraahdo digniin baan idin dul maraya waxay leedahay haddii duudu bulshada lab iyo dhidig la isku daro ugu dumar baa tahe hooyo dulmar baa tahe docdii badan baa tahe awoodihiin baa tahe duxdii noloshaa tahe deerkii ummaddaa tahe doodkii faracaa tahe dugsiga ubadkaa tahe dirkii dhaqankaa tahe duntii nabadaa tahe deeqdii rabbi baa tahe abuur diran baa tahe da'daada mas-uul ku noqo ninkaad la dardaarmasaan ninkaad la dadaalasaan ninkaad runta daba wadaan ninkaad aqli daba sidaan ninkaad xal la doonaysaan ninkaad danta kula jirtaan dawada guushuu helaa dawgii noloshuu gartaa duugana sharaf buu dhaxlaa hadduu rag u doqonsanaa geesiya diricuu noqdaa dushiya caaduu tagaa haddii uu dulqaad yaraa midaan wax danqaabanayo duqii nabaduu noqdaa jacaylku kalbuu degaa kasheeda kaluu duraa wuxuu isku soo daraa duulaanu isku haynahayn
qulubta darmuu dhigtaa labadan darajo baxshaa mid baa dugsi lagu unkaa raaxiye farax lagu dagaa ladnaan lagu diirsadaa awlaad lagu doogsadaa mid baa diri lagu dhacaa hankiyo nafta laga dumaa dookhana calaf baa hagee haddaad guur dadab gashaan dulqaad iyo samir lahow ninkii dubatana ha noqon ayaan lagu odhan duryama ayaan lagu odhan dunsada ayaan lagu odhan dayaca ayaan lagu odhan degdega ahaw daniheed ku filan ahaw ducaqaba asturan sabool kugu sida dushaa sabool kugu dhaqaya diin sabool dadba kuugu jecel sabool kugu qaba dantaa intuu samir kula dugsado sabool marna kula damqada sabool marna kula dardhada duruuftana kaala siman dareenkana kaala mida ayaa daralee ka roon midaan dabacsani lahayn midaan dabka kaa baktiya dhankiisa ka daari karin midaan ku daryeeli karin mid aan kaa dayn afxumo markuu helo duunyo badan miduu diinaar bedelo intuu dumarka u sanqado fiidkii dabagala hablaha dhammaan diricyada eryada ilayn darajada haweenku ilayn waa wada dulqaadka ilayn deganaanta weeye xishoodku miduu dabaalay ilayn ruux kuma dambaabo ilayn dabadeed ma caayo ilayn daandaansan maayo haddayse habeen dawaafka dadkoolladii suuqa meerto intay gurigooga diido hadday kolba laba ku daahdo hadday duuljaan la shoorto habsaanshe hadday danayso halleeye hadday ku daasho walee darajadu ka weeqan walee dadnimadu ka faydan walee dariskeedu sheegay walee ceebaha dusheeda walee kii dagay tilmaamee warkeeduna dibadda yaalle haddaan diintaa islaamku ku duxin maankiyo quluubta yaqiintu iimaanku ku soo dabraynin yaqiintu ku doojinaynin wanaagna ku deeqi waayo durhaatanaadi lowdo dambeetana eegi weydo gafkaaga dareemi weydo dadkana aad xeerin weydo cidluunbaa kuu dambayne haddaad asturnaanta diido dibadda xubnahaaga keento intaad kolba daaf balnayso hagoogta haddaad ka dayso jidhkani dusha laga arkayaa inuu dembi yahay yaqiinso duufaanno marbay kacaane haddaan cirku kuu darroorin dushaadana roob ku hoorin dugsiga aqalkiiyo rogtiinna haddaan laga shidin dab oogma wakhtigu adi kuma dildarin duruuftuna kulama dhalan waayaha dunidiyo lurkiisa dadkuba waa kula qabaaye ka saar noloshaada dayro haddaba awaanka ayaana isla markaasi asna sheegay in gabdhuhu isxakameeyaan isla markaana laga fiican yahay waxyaabaha gabdhaha iyaga qaarkood ay sameynayaan telefoonkooda oo Snapchat lasaga duubayo isla markaasi ay iyagu raali ka yihiin mararka qaarna iyagu ay duubayaan way ka deeriyeen dadka Soomaaliyeed dhammaan abwaaniintuna waxay dhaheen waa qalad arrinkaasi gabdhuhuna ha is ilaaliyaan fariin weyn ayaana loo dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed in la gabdhuhu ay is ilaaliyaan isla markaana telefoonkooda iyo telefoon kaleba aysan waxba ku duubin ay isla markaasina qalad ay tahay haddaba gabar hadaa tahay ilaasho telefoonkaaga yaa waxba ayaa lagaga duubin adiguna kaaga waxba ku duubin waayo bari kamaal ayaa laga jibsan karaa oo lagu soo faafi karaa social media haddaba bil cibaada ayaana lagu jiraa la iska ilaaliyo waxyaabaha lagu soo faafinayo social media oo qaladka ah haddaba saaxiibayaal ku soo